يشيق مساجد كهض اليوم نستيح حداد ربطان إذن كان نستيح أوبا شيخ أمول ما 0.5 نما أيو إيغو ماغيا وقدي جديريو أو قرباش كلا دول عدي شيخ أمول جواب لياب لهنا كبحسي هذا الكيو شيخ أمول كيري سروال كيدا موقال كان قيبيه سدن بوحات كو أركي دونتا إريا كايا بنيا وما مقدي جديريو إيو كليدا هاي الشيخ وين الشيخ أمول balse marka hore daawade waxaan ka codsanayaa inaad subscribe taabato channelkeena oo aad la wadaagto muuqaalkan saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada maama Khadiija Diiriye ayaa aad uga carootay hadal waana ahaa oo Sheekh Umul ku yiri in surwaalkeeda aysan haboonayn inay la hortimaado bulshada balse maama xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye ayaa cishan weysa carada ay ka qaaday hadalka sheeqan iyadoo tiri waxa uu inagu maagayaa aniga iyo gudoomiye Sacdiyo in aan nahay 0.5 sheeqa oo ula jeeda Sheekh Umul waxa ay tiri maxaa u diiday in uu ka hadlo dadka dalkan qaribayo haddaba dadkii ayay ula jeedaa dadka dalkan qaribayo maama Khadiija Diiriye muuqaalkan ayuu ku faahfaahin doontaa sidoo kale jawaabtan cajiibka ah oo ay dul dhigtay Sheekh Umul ayaan ku soo gudbin doonaa daawade muuqaalkan ka bogasho wacan balse waxaan ka codsanayaa inaad subscribe taabato aw xirsiga qololka ka qayliyo iyo sheeqa masaajidada ka hadlayo nasteex hadaad rabtaan idinka nasteexa u baa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo arin maalmahan soo noqonaysa waxa soo taraayo warar soo noqonaya oo ka imaanaya kuwa magac culimo sheegta oo Yurub iyo Mareykan qolal ku xiran oo siyaasadaha ka hadla iyo rabitaankooda oo aan ku salaysanayn diin kuna dhaleecaynaya madaxda qaranka iyo hoggaanka ugu sareeya haweenka Soomaaliya waxa soo weheliyay shalay oo jimca ahaydna inuu ka hadlo Sheekh Umul diinta islaamka waa nasteex wararka ay sheegayaan maalmahan annaga ugama qaadanayno inay nasteexadii diinta ay wax ku sheegayaan koow waxay ka hadleen surwaal waxay og yihiin ummadda Soomaaliyeedna og tahay iska dhaaf dumarka Soomaaliyeed yar iyo weyn inta surwaal xiran oo golayaasha dawladda iyo hay'adaha dawladda ka shaqeeya la cadad wala xisaab dunida muslimka marwooyinka ugu sareeya ayaana saraawiish xiran surwaalka shalay laga hadlay kama duwana saraawiisha shirka 5 September la qabtay wuxuu ahaa haweenka nabadda iyo amniga mana ahayn shir looga hadlayo xadgudubka jinsiga taasoo lagu dhaleecaynayo hoggaanka ugu sareeya haweenka Soomaaliyeed gudoomiye ku xigeenka koobaad hogaamiyaha siyaasadda beesheed aqlabiyadda baarlamaanka madam Sacdiya Yaasiin Xaj Samantar waxaan ka qaadan lahayn haday nasteexa tahay laakiin uma aragna nasteex magaca culimada Soomaaliyeed ayagoo sheeganaya kama hadlin ilmihii iyo waalidkii iyo dadkii guryahooda iyo ayagaba la isku gubay caruur Soomaaliyeed oo jawaano ku guran ayagoo la gubay inay arkayeenna jimcayaasha kama aysan hadlin qololkana uguma aysan hadlin ay ka qayliyaan habeenkii ceelasha dad iyo dunya ay ka cabaan oo la gubo kama hadlaan gabdhaha Soomaaliyeed 3 jirka ah iyo 5 jirka ay gudoomiyaha sheegtay iyo kuwa 12 jirka ah
oo tacdiyada loo geystay kuwa la jarjaray oo digsiyo lagu daboolay kuwa la dabaqyo laga tuuray iyo kuwa inta la soo tacadi lagu sameeyay haddana waalidkood ayagoo meydkoodii la duugay ay dib u arkeen oo jarjaran intaba kama aysan hadlin culimadeen sida aan sheegay oo ku celinayo way badan yihiin dumarka hay'adaha dawladda ku jira saraawiishooda wayna badan yihiin kuwa caalamka islaamka madaxda ka ah oo madaxweynayaashu qabaan oo saraawiishooda kuwa madaxda ah oo hoggaanka dalka ugu sareeyana maanta aan haysan diinta islaamka nasteexada marka laga hadlaayana qaraabada iyo ehelka hoosa laga bilaabo kuwa xad ka gudbay oo ehel iyo qaraabo ay ahaayeen jira oo diintana xaga u dhaaf waligood nasteexo hoose iyo mid kor ayagoo siinayana lama arkin ma waxay yiraahdeen madam Saadiya gudoomiyahay iyo Khadiija Maxamed Diiri 0.5 waayo culummo nasteexaysa dadkoodu ma laha diintu say 4.5 man horta ka bilaaba kuwiina xadkii gooyay annagana nasteexan noo muujiyo oo ubadkeena la gubay iyo hooyooyinkeena iyo ceelashan ka duugay ee dad iyo dunya shacabka Soomaaliyeed oo dhan maanta u taagan yahay ka hadla hadaa diin ka hadlaysan kacdoonka shacabka argagixisada ka hadla hadaydan idinku kamid ahayn kuwa baa dhawaaq idinka rabo kuwa baa la rabaa inaad ku garab istaagtaan dagaalada dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay maanta ku jiraan yaa reed inaad fahmi kartaan wax badan oo ummadda Soomaaliyeed maanta ay fahmayso idinkaan idin nasteexaynay aw xirsiga qololka ka qayliyo iyo shiiqa masaajidada ka hadlayo nasteexa dad rabtaan idinkaan nasteexa u baa waan ku celinaya haddii cidi loo nasteexaynaya idinkaa u baahan nasteex mararka qaarkood waxaan isiri Sheekh Umar wuxuu afka u furtay hadda ka hor buu yiri anoo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ah isagoo lacag soo qaaday dawladdan u wada dhahay buu halkan yimid muxaadaraan ku qabanaya buu yiri wasiirka dhalinyarada iyo isboortigan ah maalintuu yiri muxaadaraan ka qabanaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan baa ooynaysay aaskii almaas elmanu aha ma u garanaynin taasaan u baajiyay oo dawladana aan dib ugu celiyay inaan maalinta baroorta dhalinyarada Soomaaliyeed aan dacsigaaga lagu soo beegin ilaa aan meydka ka aasano way doobantahay meel kastana way ku jirtaa kuma bedelan kartid Khadiija surwaal wadata surwaalku waa baday diintan waxba uma dhimo labo aan kugu nasteexaynaa habar baatir awo iyo maalin salaad kasto aan dukado ilaahay waxaan ka baryaa cimri dheer iyo caafimaad habarnimadu waa darajo Allah subhanahu wa ta'ala ayaana ugu mahadiyaa oo habar dhaaftaan ahayo ayeeyaan abuulan baan ku sii socdaa habarnimadu faan iyo amaan bay ii tahay aan ku nasteexay dib ugu noqo waxa ummadda Soomaaliyeed ka sugay cilmiga ilaahay ku baray waxaan filayaa inuu la yanfac yahay waxba kuma tarin hadduu wax ku taray nasteexada meesha jirtaad aadi lahayd wabillahi tawfiiq